wixii aan dhihi lahayna waa la yidhi meeshaan waxa ugu daran oo hadda dhibaatada la filahaayo dalkan waa doorasho aan leesla ogolayn doorasho Puntland laga tegay Jubbalandna laga tegay waqooyina aan qofbamaha u taagnayn oo qof wakiil ayan u taagnayn adarisna xataa aan loo joogin alla qabaha waxa qabahaayo oo waa qabahaynaa yidhi waa hawiye warka in afka laga dhowro looma baahna hawiyuhuna iyo digle meerfalan waa la jiro hawiyahan afkiisa ka haynana waa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha galmudug madaxweynaha galmudug dadka uu ka soo tagana waa ka daba qayleenoo beenoo naga sheegay jireen haddii ayaga been sheegayaan hadduu asagu been sheegayo waa la arki doonaa waxay noqdeen beel yaroo warkii loo soo dhiibay dadkeeda colaad ku gelihaysa dadkooda colaad ku gelihayso oo colaad dadkooda uga baaqayso shaqo waa la heli jiray waana la heli doonaa saddex nin ma hadlin laakiin maragay ahaayeen waa taagnaayeen anaka afkooda wax ka mahayna laakiin taagnaantooda kaliyaan ku xukumaynaa lama ninna waa hadleen nin hayahe mataqaanaa kiiskow bandhigay isagu dacwada oogay ninna waa xukumay ra'iisul wasaarahayna anaku inuu hiraab kaliya ra'iisul wasaaruu yahay u malaymahay waxaan u maleeyahay ra'iisul wasaare Soomaaliyeed inuu yahay oo Soomaaliya dhan oo hoggaan u yahay wixii loo soo dhiibana sida bamba inuu uga raxayo u malaymahay nin wax kala reebaha ayaan u maleeyahay aad ayaan ugu han weynayn waa lagu caymaha haan islahayn laguma cayman waxaan aad u rajayhaa dalkan ciidamadiisa ciidamo Soomaaliyeed waaye shaqadana waxay weyhaayaan haddii dagaal kale in dhaco dalku burburo waa shaqo beelayaan laakiin hadduu dalku dhisan yahay farmaajo uu iska tago muuse suudo uu iska tago ra'iisul wasaarahan iska tago qoorqoor iska tago shaqo wey maayaan shaqadooda waa u socohe ciidamadoo farmaajo qorsita filamayno idinka dalka iska burburinina dadkiina hadilinina fahadoo qorsitana filamayno waxaa aad loogu baahan yahay ninka qoriga qaadi karow dalkan reebta qorigiina hayahe raaracsada amarka midaan la qaadanaa jiro qofkan dil haddii la yidhaaha hadda ka hor laba nin wax badanaan soo aragno dad warkayga hadday maqlaan fahmi doonana waa jiraa laba nina asbaadhiistay ahaayeen nin qora baabaashe oo howat nin qorag ah ka howat ninka baabaashaga wato isbaarada nin dhiga jira maaha laakiin ninka aa ka wato nin khatar u ah
nin oo bac ku sito alaabe ay arkeen wuxuu sito gadaalaan ka sheegi doonaahe ninkii isbaadhiistaha run ma ahay waa boodiye asoo dhacay asoo dheg jira asoo booda kii kale uu ku dhifo kii kale beebeshiig bir ku sii ninkii waa dhacay haqashay waana ku dhifteed adigaa dilayuu yidhi marka waa ku marqaati furi waryaada qoftaa dishiin idinkaa laydinku marqaati fura idinkaa disheenaa laydin leeyahay farmaajo diyeyda ka baxe maa waxau idin siinaayana ma jiraan haddaad dhimatiinna waa dhimateen haddaad wax dishiinna dalkiinniyaad gubteen iyo dadkiinni waxaan aad u rajayahaa markaan warkaan leeha waaniiga aqli badantihiin waaniiga ogaal badantihiin inaad degdegtiin filamaa hiram cadaa la sheegay hiram caday waa leedihiin raadiyaal iyo teleefoonaad dhegaysatiin waxaa la sheegay nimanka la yidhaaho gorgor oo idinkana sidoo kalea tihiin hadda ka horaan sheega aniga ciidamada in la aruuriyaan hoggaan kale loo suubiyahaan idhi hoggaanka kale ku dhifa hadduu yidhaah adigu ku dhifo ayaa la rabaa in la yidhaah ku dhifa aa la rabaa in la yidhaah hadda ka horaa anaga baarlamaankana loo diiday nin taliyaa aa noo diiday wuxuu yidhi marka iridda u iyo joogsado ou askartii yidhi dila anaa waxaa yidhi waryaa ma igaarteenaad nagu dire igaarteyna maa nagu diri hayn farmaajo igaarteyna ha nagu dirinaan ku leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu